بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكني وقلبيت تي في. مرنوي عويان ودادي وعنيد يودن ودايات ويان ودادي بيكو وعنتي يالو خاينك كلاوان وحديدي مديدي مرنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قايبا وحوها عامر واصل لي أنا هاتن عيمدي عامر واصل ليلو أنا هاتن عيمدي فأنت وحلقها يا سومالي لان بلقها يا سومالي لان آوي سومالي لان لو ذلي هاي سومالي لان وناكسن سومالي لان قروح بدن باركشة كجتين بدن ويدي سومالي لان بنو نهاي تي وحنا هاي أدير كده بنا أنا قاعد اسمع عالم كانوا سميني waxaanu samaynay maxaan ku raadayay waxaanu samaynay maxaan ku raadayay heesta caalanka shirka qbuur baan qabanay waa meeshii lagu aasaasay Somaliland way duurtay Muuse wuxuu raada Muuse wuxuu raada Somaliland way duushay way socotay hore loo soconaya loo joojin maayo ninkii cilada ka qurba cilada ka dhurma dhagaha ugu riday dhacayn waxaas lagu akhriyaa dadka reer Somaliland ku nool gudaha laakiin ummadda Soomaaliyeed way arkaysaa dadka dhiigga leh ee dareenka ku jiro ee nool ee xayigahay waxay arkayaan Soomaaliland wax jira ahayn Somaliland wax jira inay ahayn bay arkayaan ummaddu way arkaysaa waa arkana maanta bari waxa ka dhacaya galbeed waxa ka dhacaya beeshii dhexe waxa ka dhacaya halkee jirta Somaliland jirta markaas balada la sheego yaa ii sheegi karaya Somaliland meesha ay jirto maanta balada in badan baan ka hadalnay Somaliland wax la wada leeyahay maaha قبلي ما دركت ما تاخد عيا رياض لو وفي قبلي ما حقد عي قبلي ما حقد عي سيلع عسكري لوا فرقد أبود سيلع ورا بود قبلي ورا بود لاس عالود ما حقد عي وبلد سويدية بدر رئيس ما لا أنت تذكر عقلي قال إيه فكرة يو سويدية هذا سويدية عقلا وشرعا وحلا أقول يا ميت واحد كسر سماه لا كسر وح عقلي قبل هذا كديدة يو سماه لا كسر labiyo 80 xildhibaan baa maanta yaa ka jira maamulkaasi samaystay dad baa samaystay waa la samaystay reer baa samaystay jilib baa wasi samaystay waxay hadra labiyo 60 xildhibaan waxay markii hore ahayd 52 iyo 50 baa lagu murmayba marankii hore waa dhabaad way soo dhaaftay maanta waxay maraysaa labiyo 60 bay marayaan maanta labiyo 60 out of 82 haye balda ka warama ka sheekeynaya يا أورانا يا Somaliland ولا ودلي هاي يا أورانا يا Somaliland عدالة بكجيرته يا أورانا Somaliland دورشة كدعضي دورشة الدعضي Somaliland كدعضي دتكو وحاسك دورتان وحلسك سبانية anybody واحد دوران كرا anybody بعد سبان كرا دورشة سبانية يا أورانا يا لكن ما دورشة حاسي دورشة دوار معناه سمايسو يي معناه سماينا صار دورشة داني يي معناه سماينا صار دورشة سي ummadda reer Somaliland ku nool ee wadanka Somaliland ku doorayo ku nool gobolada waqooyi ku nool waxaan leeyahay tashada talo maanta idin taagan tahay hadda tashanaysan xildhibaanada soo baxay ee da'da yar ee dareen kale waxaan u sheegayaa maanta qan baa ku qadriya waxaan leeyahay Somaliland wadankiisan labiyo 80 xildhibaan baa ka jira golaha baarlamaanka deegaan iyo xaqiiq iska ilooba deegaan iska ilooba deegaanku waxa weeyaan waa saleelo meeshii sharciga laga sameeyay kuwaas waa golo deegaan oo in gobolka ay degmadaas wax ka qabtaan baa lagu talagalay waa dawladaha hoose meeshii sharciga lagu abuuro sharciga ka soo baxo isha sharciga ka soo baxo ayaad leeyahay doorto fariisanaysan maanta ma sharci baa ka jira oo meesha fariisanaysan sharci kama jiro labiyo 60 xildhibaan baa lagu soo fariisanaya adna ka fadhidaa 12 reeawdalow
sool baa ku fadhida mataqaanaa iyo sanaag oo dhan baa ku fadhida mataqaanaa 6 xildhibaan. Can you imagine? nin la u doobshay horaan u sheegay waxaan ku uri dadka u sheegay waxaan nin la u doobshay nin la cabirka saartay berigii hore waxa weeyaan ee la sameeyay dastuurka la sameeyay saddexdan inay walaalaha ninkii uu sameeyay Allah naxariisay maxamed xaaji ibrahim cigaal buu ahaa siyaasiga waxaan sameeyay ee cashuuraha sameeyay ee dastuurka yar sameeyay ee qaabkan u sameeyay ee yiri triangle-ka mataqaanay hargeysa wajaale iyo gibiley baa loo sameeyay waxanba amir wasaleele ana haatan caymadii bay socotaa maanta sheekadu maanta maraysa nin jecel iyo nin doon waxaan ku raadnaa necebba Somaliland waa lagu kala tagayaa kala tagaajo in badan baan ari Somaliland waxay maraysaa kala tagaajo Somaliland maanta marayso kala tagaajo way maanta Somaliland maanta maraysaa kala tagaajo Somaliland waxay maanta maraysaa halkii ugu dambeysay waa kala tagaajo maraysaa nin ogol iyo nin diidanba waxaan leeyahay ummadda reer waqooyigu hadday tashan weydo waa loo talinayaa 62 xildhibaan maanta loogu talinayaa maxaa samayn kartaa mooshin baad sheegaysaa haddii xitaa aad ku saadato qayliso laakiin bannaanka dad ka istaagtaan xildhibaanada maanta baaqaan u diraya waxa weeye inay bannaanka ka istaagaan waxaa ka soo ka dhacaya meesha oo ayna golaha tegin iyaga oo mataqaanaa codka gobolkooda ku hadlaya halka ay taagan hadaan Somaliland hadii la wada yeelanayna welcome hadaan la wada yeelanayna goodbye awood baa leedahay use your power hadaan awoodada garan weydo oo awoodda aad leedahay aad garan weydaan oo xildhibaana maanta xasaanad baa leedahay shalay waa la weeriyay maanta yaa ku weeriyay xildhibaan baa tahay maanta xasaanad leh oo awood leh oo mataqaanaa codkiisa iyo adduunka dhageysan karayo maanta meel laga dhageysanayo xildhibaanada la hadlaya golaha deegaanka ee soo baxay aqoonyahanka da'da yar la soo baxay shalay waxaan ragii ku ololeenayay doorasho ma dhacaso ma diiwaangelinta ma gelno xaqayaga codkooda waa fadhiisamayno ma banaankay joogeen codkooga lama dhageysanay laakiin maanta codkooga wuu ka duwan yahay codkii hore maanta awood bay leeyihiin ay ku hadlaan awood bay leeyihiin ay mataqaanaa ku qalibaan meeshaba waa la qalibi kartaan meesha waad qalibi kartaan Somaliland isma dhageysato laakiin haddaad qalibtaan waa la dhageysanayaa codka maanta idin yaala haddaad golad baarlamaan tihiin waxa weeye idinkoo midaysan ama ka soo bax mataqaanaa xusbiga mataqaanaa ee saddexda ilmaadeerka ka soo bax dis xusbi wax maaha waxaan waa xusbi lagu sheega maaha waa reer baad mataqaanaa u shaqo tagaysan war waxaan kuli sharaftiina iyo karaamadiina waxay ku jirtaa no inaad tirahdaan maanta oo tirahdaan ama wadani ka soo bax ninka dhakada xiran leh xusbigiisa ka soo bax ama Faysal maxaan ku dhahay Faaro ka soo bax ama Muuse Xayraan ka soo xusbigiisa ka soo bax meesha dadka soo bax codkiina gobolkiina ma matashaan reeraha kale ma matashaan Muuse ma matashaan cod ma leh uma haysan oo ma matashaan maxaan ku raaa ucud ma ninka Faysal ma matashaan Muuse ma matashaan waxaad matashaan gobolkiina shalay waxaad matalaysan oo la nii dooranayay beelihiina jilibkiina maxaa wadana markaas danta jilibka reer awdale degan saylac degan iyo ka degan dila iyo ka wajaarada ka geble degan waxay ku jirtaa inay wada fadhiistaan horta هذا maxay noo dana dantu maxay noogu jirtaa ma Somaliland bay dantu noqsaa ay tahay in badan baan banaan ka qeydhago idinkoo xildhibaan ahay bad qeylin jirteen idinkoo shicibad qeylin jirto dhalinyarada qeybin jirteen maanta idinkoo awood leh oo cod leh oo power leh haddaad maanta qeyli wada wada fadhiisataan aad go'aan midaysan ka soo saari weydaan maamulka aad u tagaysaan iyo meesha shaqaalaysan dad maanta go'aan ka soo saari weydaan daaminis waxa weeyaan waxaad la mid tihiin kuwii hore fadhiyay ee shaqo tagay shaqo tag koox ka weyn baa idin sugaya shalay waxaan niri waxa meesha la nii geenayay oo reeruhu idinku tabcayeen oo odaygu idin hor socday oo maxaan ku dhahaa islaantu idinku soo baxasay oo carruurtu idinku soo baxasay oo la idinku mataqaanaa buuqa la idinku sameeyay oo heesaha la idinku sameeyay hubiyadii la idinku qaaday waxa la lahaa wax isbedel bay keeni karaan isbeenayaan isbedel bay keenayaan oo gobolka dhibta ku jirta ee dekadihiisa xidhan yihiin ee businesskiisa xidhan yahay gobolka business baa ka jirta gobolka there is no business gobolka sida ma jirto jeel cirka u furan weey manaha dadku business ma wax yaqaanaan dukaan samaysto oo safar la miisayo warna adduunyada la xidhan oo LCO soo wax soo dajisan wax dhoofisaan ma yaa ninka raba laakiin inaad hargeysa ka soo qaadataan oo agency noqotaan hargeysa maanta dadka reer awdal maanta waa agency weey dhammaantood cid bay u shaqeeyaan
حتى ميديا عيدو شقاية اسكت واحد كله ميديا رير أوضل وإيجنسي وي وحنا الجزيرة اللي قبل مسيدين كران حر معها إلا قفك حر نقضه فري إذا تكون ولاته لايف ما أنت أصلا حرت هاي عد كاجا سيدين سواء حد نقول هذا صو ديمقراطية دوتها ديودا كجرتها لكن ميديا رير شقاية oo hargeysa laga monitor gareynayo oo la eegayo oo dad monitor gareeya jira mataqaana waxa ka soo baxay gobolka awdal inan kasta oo kabarasita oo awdal waa la monitor gareeya wax kuma hadli karo xor uma hadli karo wuxuu doono ma soo deyn karo facebook ma gelin karo like hadduu meel saaraa la leeyahay cirka loo diraya waa like one single like baa cirka loogu diraya jaalayaal mataasaad markaa dhegeysanaysaa markaas taasi wax la dhageysan kara maaha mana la dhageysan doono anigu waxaan leeyahay ummadda reer waqooyi sool iyo sanaag iyo cawda sool iyo sanaag iyo awdal iyo cirka loo diray cirka loo diray hadda waa cirka waana dadka Soomaaliya saa haya especially reer awdal Soomaaliya ma saa haynaa waan haynaa hadda argeysa haday wax wada qaadatay nin la u doobshay waxay u bixeen weeyar waxay ka inta u galeen weey oo waxay mataqaan u soo dagaalameen waxaa ninka jaahilka maanta hor fadhiyo saddex nin baa hor fadhiya oo dalkastaan baa hor fadhiya ummadii waxaan u fikirtayna cirka loo diray hargeysa waxba iskuma haysan maanta biyo wada cabayso 62 xildhibaan waa shaqo tag laftoodu waa intooba waa shaqo tag weey laftoodu waa shaqo tag cid baa ku shaqaysanaysa maaha dad xora maaha laftoodu maaha waad ogtihiin sidaa daraadeed waxaan leeyahay maanta baaqa aan dirayeen u dirayo dhalinyarada aqoon-yahanka reer awdal ee soo baxay ee xusbi maamulada ka soo baxay mataqaanaa ka soo kala baxay saddexdaa ilmina ilmaadeerka ee shaqaalaha ay qoranayeen liiska ku soo baxay waxaa laga rabaa inay wada fadhiistaan xusbiye ma tihiin ninna una ha u qaadanin inaad ucu tahay ama wadani tahay ama kulmiyo tahay no you guys ma tihiin midna ma tihiin gobolkiina tihiin dadkiinaad matashaan dadkiina haddaad matili weydaanna waxaad noqonaysaan garbage baad noqonaysaan garbage baad noqonaysaan ha u hadlina gobol kale lima dooran meel kale lima dooran waxa laydii doortay waa gobolkiina wey gobolkiina laydii doortay ood matashaan laakiin ma matashaan muuse biixi iyo ina muxuu ahaa ninka la yidhahdo muxuu ahaa ina baalkii muxuu ahaa cabdiraxmaan ciraarna ma tihiin ninka la yidhahdo muxuu ahaaye faysalna ma tihiin midna ma matashaan waxaasi maskaxdiina iyo gelin maskaxdiina ha gasho inaad gobolkiina matashaan inaad dadkiina matashaan inaad awood ku leedihiin codkiinu inuu awood leeyahay maanta power maanta waa warshado naabaal baad maanta ridi kartaan maanta cid ku xidhasaa ma jirto shalay waa lagu eryanaya haddaad hadasho waa lagu eryanayay laakiin maanta yaa ku eryanaya iyo xasaanad baad leedahay maanta waxaa jira systemka jira yaa sharciga kugu siinaya inaad hadasho laakiin sharciga kuma ogolaynba sharciga la samaystay kuma ogolaynba inaad xataa hadasho adoo xitaa mucaarada ayuuna ku ogolayn inaad hadasho xitaa ku ogolayn marka maanta codkiinu maanta waa dheer yahay maanta adduunkaa maqlaya maanta institution jira oo mataqaana meeshaa ka jira systemkaan uma aqoonsan laakiin meeshaa ka jira ayaad ka dhex hadli kartaan maanta ood codkiina ka dhiiban kartaa inaan waxaan wax jira ahayn ilaa la wada yeeshana idaanan golaha gelin hawshaa gala haddaad rag tihiin weeye waa haddaad rag tihiin oo idinka dhab tahay isbeddelkaad doonaysaan laakiin haddaad u kala badisaan oo habeenka dambe u cudino iyo idhaahdo arrimahan ka hadli mayno inagu waxaynu nahay mataqaanaa somaliland wada jirkeedanu ka shaqaynaynaa waan soo bixi doonaa markaa kama hadli karno wadan isagoo kale xusbul xaakimka meesha ka jira muusana idhaahdo inagu maba hadli karnaba waxaan nahay mataqaanaa xusbigii ugu da'da weynaa meeshan hayaynu nahay markaa xusbigeenu inuu wax kale ka hadlo inagu waynu sanaynu samaynaa dadkaynu isku wadaynaa waynu isku haynaynaa waxaas ma shaqaynayso waxaasi idinkama shaqaysa maanta waxaan leeyahay maanta idinkoon qori qaadanin idinkoon rufid kala samaynin baa codkiinu maanta shaqaynaya shalay odayaal baa fadhiyey 17 sano fadhiyey oo iska qaylayay maanta ma qaylasaan idinku qayl idinma yaallo idinma taalla wax kale waxaa idin yaalla maanta inaad wada fadhiisataan go'aan ka soo saartaan idaan golaha tegin ilaa iyo inta la wada hadlayo ee saami qaybsiga meel la dhigayo saami qaybsigaas ka sheekaynayseen haddaad maanta meel dhigi weydaan laakiin golaha sidii hore iska fadhiisataan oo kuraasta buuxisaan cod ma yeelanaysaan markaas
haddaad 100 ajenda keentaan haddaad 100 keentaan mataqaana mooshin keentaan kooran ma buuxinaysaan dhammaantiinba inta aan ahayn beesha dhexe kooran ma buuxinayso 20 xildhibaan baa tihiin 20 xildhibaan baa tihiin marka lagu daro xabad ciisa xabad gabooya xabad hawiya xabad maxaan ku dhahay akisha iyo 26 kale 12 ree awdala 6 maxaan ku dhahay ree soola maxaa samayn kartaan baad ii sheega waxaa samaynaysaa waxa ma samayn kartaan de marka waxaan leeyahay anigu maanta waxaan leeyahay oon baaq cus idinku soo dirayaa dhalinyartii ree awdal ee aqoonyaankii ahaa waa wasoo garanaa dhalinta waa asxaabtii weeyi asxaabta haddaad maanta go-aankiina aad ku shaqayn weydaan u malayn maayo inaad beri dambe idin soo marayso jaaniska haddaad maanta khasaaraysaan oo beerdaraysaan dib idin soo mari maayo waa waxaad sugayseen inaad meel aad ka hadashaan platform aad ku hadashaan oo codkiina aad ku dhiibataan ood ummadda kala hadashaan ood adduunyada u gudbisaan waxaan meesha ka jira u gudbisaan haddaad maanta samayn weydaan u malayn maayo inaad maalin damba samaynaysaa soo marayso u malayn maayo ku idinka dambeeya inuu samayn doono ayaantii la sugayay maantay timiday ayaanbaa iman doonta allah naxse gaariya waxaa laga hayaa ayaanbaa iman doonta dadka sool iyo awdal raadcadoodu adkaato oo lagu raadsho ilays haddaad maanta qiimihiina aad kor ku qaadi weydaan ood maxaan ku dhimaankiina aad hay ka dhigi weydaan haddaad laakiin jiib noqotaan haddaad noqotaan jiib baad noqonaysaa ilaa qiyaamaha ood ku jiraysaan jiibka ku jira laakiin awooddiina gartaan leeyahay anu maanta waxaan ii sheegayaa un awooddiina garta awooddaad leedihiin ee ilaahay maanta idin siiyey garta awooddaa shalay awood hurday ahayd oo aan la garanayn nin qayilaya oo aan cidna matelin baa joogay shalay meesha kursiga fadhiyey 17 sanad ka fadhiyey laakiin maanta waa da'yartii mustaqbalka lahayd baa tihiin maanta aabbihiin wuxuu idiin qaban waayey maanta haddaa idinku qabsan weydaan ma u malayn maayo maalin dambe inaad qabsanaysaa inay soo noqonayso soo bixi doonto marka waxaan leeyahay akhyaarta meelaad joogtaanba ama ka soo bax mataqaanaa gobolka doonta ka soo bax 4 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka awdal meesha doonta ka soo bax meesha doonta ka soo bax ninka ilaahay keenay ee kursiga fadhiisiyey maanta ee jaaniskiisu maanta ku siiyey inaad meeshaa fadhiisato ood awood codkaaga ku fadhiisato ood wax ku bedeli karto haddaydan ka tashanin oo aydan noqonin dad isku tashanaya oo gobolkiina u fikiraya oo cadaadiskii iyo cagajuglayntii iyo wixii soo maray maanta haddayd ka maydhani weydaan u malayn maayo maalin dambe inay soo marayso gobolka oo ay hadlaan oo ay awooddooda sheegtaan oo ay codkooga meel marayaan hadday ma dhaci karto ma soo mari doonto laakiin maantay taagan tahay today haddaad maanta jaaniskaa ka faa'iidayn weydaan oo fursaddaa dahabiga ah ka faa'iidayn weydaan oo malayn maayo ku idinka dambeeyaana in waxaa samayn doono haddaad laakiin raacdaan tallaabadii ku idinka horreeyey oo haddaan inaa wajadnaa kuwii naga horreeyaan mas ka soo gaadhnay in la kuraasta laska farfadhiyo oo halkaa la joogo oo dheemaalka laska cuno oo maalinba wixii loo sheegu qaata haddaad noqotaan waxa weeyaan 82 waa ugu dara anu waxaan leeyahay go-aan ka gaadha waxaad tidhaahdaan haddii aadan somaliland la saxayn la wada fadhiisanayn lagu wada hadlayn oo saami qaybsi la samaynaynin 20 xildhibaan ee kale ee dadka kale ay leeyihiin ha loogu daro meesha dhexe muuse ha loogu daro siiya nin walba waxaad tidhaha xisbigii ku shaqo geeyad u shaqo tagtay waxaad tidhaha kursigii aan ku soo baxay ii qoratay shaqadii waa iska casilay simple waa intaas markaas somaliland xagee digaysa markaas haddii nin walba weyna beri waa is casilay yaa xagee la tegaya balaqsa ii sheega awooddiina garta awoodda aad leedihiin garta haddaad awooddiina garan weydaan dhallinyaroy ood u shaqaysaan shaqatag noqotaanna waxaad ogaataan ilmihiisu inuu saa ku jirayo waliba ka daranayo waxaad noqon doontaan qolada la yidhaahdo mataqaanaaye maxaan ku dhahay jibiskaad noqon doontaan oo adduunyada mataqaanaaye aan ciddo tirsanin laydin tirsan maayo maanta fursadda dahabigaad haysataan haddaad ka faa'iidayn weydaan haddaad garan weydaan dib kuma soo marayso marka waxaan leenahay maanta fursad baa haysataan fursadda shacabkiina uga faa'iideeya
waa dhallinyaradan la hadlayaa xildhibaanada ee soo baxay baan la hadlayaa shacabkana waxaan leeyahay maanta fursad baa haysataan laftiin fursad baa haysataan waxaad ogaateen halka hargeysa idinka taagantaad ogaateen hargeysi meesha idinka taagantaad ogaateen hargeysi cid naf ma hayso hargeysa naf ma hayso hargeysi geble naf ma hayso hargeysi burca naf ma hayso hargeysi berbera naf ma hayso waayo nin mataqaanaa maxaan ku dhahay dan leh oo tuuga ayaa hor fadhiya dadka haddaad rabtaan inaad dulligaa kusii jirtaan oon adduunkuna in ictiraafin meelna aad u socon weydaan oo waxaa jiru laynigu dhex socotaan horumar samayn maysaan carruurtiinna tahriib iyo ka bixi mayso waxaa socda maanta laakiin haddaad garataan awoodiina garataan oo shacabka awooddiisa u garto meel hadduu shacabkuba awood leeyaho mataqaanaa oo wax ku bedelayo waxaan ku dhaha fartiisa way fiican tahay laakiin maanta ma waxaa jira ma wax ku bedeli kartaan baa jirta waxaad ka bedeli kartaan waxaa jira idinkoo runta ka sheega oo dha waxaan inama anfacayo somaliland maxaa anfacaya isweydiiya marka maanta waxaan usoo galay inaan dhallinyaradaasi reer awdal ee halkaa joogta ama maxaan ku dhaha reer somaliland ma guud ahaan idhahdo war waxaan meesha ka socona anfici maayo wax ummadda reer somaliland ama reer waqooyi anfacaya maaha hadday sool tahay iyo hadday sanaag tahay iyo hadday awdal tahay iyo hadday togdheer tahay iyo hadday marwajeex tahayba ma anfacayo dad gaar u anfacaya shakhsiyaad buu anfacaya waxani wax shakhsiyaad leeyahay oo anfaca ayaa doonaysa inaad ku dhex noolaataan kuma dhex noolaan kartaan waxaad ku dhex noolaan kartaan meel ilmihiinu shaqo helo meel ilmihiinu caafimaad helo meel idinku aad caafimaad heshaan meel idinku aad daryeel heshaan meel idinku aad pension heshaan meel idinku aad nolol heshaan baa loo baahan yahay maanta ninka ku nool waqooyi qaar baa yidhi mataqaana waranaya koonfur ba saasa waxuma dhaano koonfur qaraxyaa ka dhaca dhibaataa ka taagan laakiin way horumaraysa haddana intaa way socotaa marka waxaan leeyahay meelaad joogtaanba xaqa u heelaya xaqa inaad u heelisaan baa loo baahan yahay oo ah waxaa meesha ka jiraan waa dulmi cad ummadda reer waqooyigu waxay ku wada joogsana maaha kuma wada joogi karto kumana wada socon karto saa daraaddeed waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaanba waxaa laynaga rabaa inaad awooddiina garataan awoodda ilaahay idin siiyey baawarka ilaahay idin siiyey haddaad isticmaali garan weydaan halkaasaad joogaysaan halkaas baad joogaysaan haddaad awooddiina garan weydaan marka waxaan leenahay awooddiina garta awooddiina garta xildhibaanada cusub baan mar saddexaad la hadleen leeyahay war awooddiina garta awooddiina waa maxay awooddiinu waxa weeyaan inaad fahantaan waxa la idiin doortay waxaa la idiin doortay inaad isbeddel keentaan kuwa la doortaan sheegaya hadda isbeddel sidaad ku keenaysaan ma waxaad ku keenaysaan sidii kuwii hore qaylqaaliya iska soo dhex fadhiya ka soo baxa ku noqda maya no ma soconayso ilaa inta saami qaybsi dhaba la keenayo laga wada fadhiisanayo qofku waa inuu sidaan hore u sheegay sida canfartadii ciisaha waa inuu qobol kasta waa inuu degmo kasta waa inay maxaan ku dhahdaa reer kasta waa inuu yaqaano saamiga uu ku leeyahay baarlamaanka saamiga uu ku leeyahay golaha fulinta saamiga uu ku leeyahay hay-adda garsoor uu ku leeyahay saamiga uu ku leeyahay hay-adaha saamiga uu ku leeyahay hay-adaha madax bannaan haddii taa aad weydaan oo maxaan ku dhahdaa sacad muuse noqdo mataqaanaaye boqolkiiba 80 uu helo maxaan ku dhahdaa shaqaalo noqdo oo hay-adaha u shaqeeyo oo wasiir noqdo oo xildhibaan noqdo oo wax kasta noqdo ummadaha kale ay noqdaan la jooga dee dadka kale ma rootiba ummadda ma rootiba inta kale rooti noqon maysaan codkiina shaqaynaya codkiina ku ciilbaxaan leeyahay aniga codkiina ku ciilbaxa idinkoon waxba samayn idinkoon dhib geysan idinkoon wax kala samaynin codkiina ayaa bedeli kara wax codkiina wax bedeli kara awood baad leedihiin haddaad awooddiina garataan weeyaan haddii aad awooddiina garataan waad awood yeelan kartaa laakiin intaad awooddaada garanayn awood ma yeelan karti marka waxaan leenahay awooddiina garta akhyaarta meelaad joogtaanba dalka sheergareeya waxaan rabaa inaan ummadda gaadho dadka reer waqooyiga waa inay arkaan xaq inay u leeyihiin inay ka tashadaan aayahooda awdal mar saddexaad mar afraad haddaad afgaran weydaan somaliland waxaad leedihiin bannaanka nin walba gobolkiisa bannaanka kusoo tashado taasaa idin go'aan noqon karta ood ku heli karta xaqiina waayo somaliland idinkaasaa haya saasaad u haysaan sacaabadiinaasay ku jirta somaliland la sheegaa garta awooddiina garta marka akhyaarta meelaad joogtaanba waan idin salaamayaa waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum meelaad joogtaanba halkan waa galbeed t v maanta bannaankaan joognaa waa mataqaanaa laska baashaadaya
marka intaasaan soo galay aad baan idin salaamayaa waxaan leenahay guul iyo gobonimo ummadda reer awdal iyo reer sool iyo reer sanaag iyo reer togdheer iyo reer hargeysaad waxaan leeyahay war waxani waxa idin anfacaya maaha aayihiina garta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala